بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله maantay oo ah maalin sabti ah dabayaaqada bisha December waxaa ka dhacay ex control qarax weyn oo saaran lagu soo raray gaari xamuul ah qaraxaas waday wuxuu isku qarxiyay isgoyska ex control afgooye wuxuuna sababay dhimasho badan iyo dhaawac fara badan dhimashada tiro rasmi ah ilaa iyo hadda ma hayno dhaawacu waa 9 sida hadda ay noo sheegeen goobjoogayaashii tirada dhimashada oo rasmigaana gadaal ayaan ka ogaan doonaa laakiin ma yara dhimashadaas waxay u badnayd arday u socotay dugsiyadaha iyo jaamacadaha number weyn ama tiro badan oo ardayda ah waxay ahayn jaamacadda Banaadir inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun Allah u naxariisto dadkaas ku dhintay halkaas waxay ahaayeen dad aan waxba galabsan shacab rayid ah intooda badan waxaa laayay dadkaas qabayaasha ku soo duulay dalkeena Soomaaliya ma aha markii ugu horeeyay oo ay qaraxa noocaas oo kale ah ay la beegsadeen markasta oo ay arkaan meel zaxmo ah ama bulshadu isugu badan tahay waxa ay ka caado dhigteen inay sidaas oo kale ay u laayaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaan ka magan galnay shartooda bulshada Soomaaliyeedna waan hubaa inay kala garteen cadawgooda iyo saaxiibkooda waxa aan halkaan rabaa inaan uga mahad celiyo ciidamadii amniga shafka u dhigay ka badbaadiyay dhagarqabayaashu hagardaamada ay soo abaabuleen inay u gudubto magaalada waxa ay doonayeen magaalada inuu u soo gudbo qaraxa si goobo muhiim ah ayo mas'uuliyiin muhiim ah oo u baabi'iyo aadaan uga mahad celinaynaa waana wixii ay u qaateen tuutaha iyo qoriga inay khatarta shacabka Soomaaliyeed soo gaari lahayd ay ayagu xabadka u dhigaan Allah subhanahu wa ta'ala ayaa uga baryaynaa inuu caafimaad degdeg ah siiyo dadkii Soomaaliyeed ee halkan ku waxyeeloobay wiilasha naftood horeyaasha ah ee u taagan har iyo habeen ka shaqaynta amniga iyo ka hortagga cadawga noocaas oo kale ah waa uga mahad celinaynaa waana garab taagannahay biidnillaahi alkariim intaas ayaa rabay inaan iraahdo halba sida ay wax noqdaan tirada dhaawacyada oo rasmi ah iyo tirada dhimashadaba mar dambe ayaan la wadaagi doonaa meediya wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum meeshan wax balaaran baa ka dhacay waxa weeye waa cuqubadaas ayaa dhacday waxaas aad arkaysaan ummadana waxa weeye lisma yaqaan waxa waa meesha waa dad xitaa wax iska daay ciyaal baa ku dhamaaday nimanka ardada jaamiciintan waa ku jira halkaan ku dhamaaday meeshan way ku baaba'een indaada maxay qabteen markuu qarax dhacay waxaan arkay 12 qof oo bidaysa bal wax kale saas u bidahayay qaar waxay ku dhaceen meeshaas oo aan ka soo gurnay hilbahooda halkaan waxa ku dhintay madaxdii meeshan xukuntay alyoom iyo ninka la yiraahdo Saylac iyo meeshan ku jiraan hoos hadda ku jiraan waa rag baaba'ay oo booliska gaariga qarxay waan arkay wakaalka halka wata laga qaaday Turkiga halkaas u galay waa meeshaas meeshu galay Turkigu laba nin bay ahaayeen gaariga noociisa ma sheegi karo waxaas ma yiri ma aan lahayn anoo dhan xitaa waa qarsoomay oo habaaskii iyo dhaska hadda isbiya ku soo maartay habaaskii iyo wixii oo dhan baa na qariyay markaan soo nimidna meeshaan ardayda markaan arkay madaxdii markaan arkay aniga waxaan sameeyay miyirkii oo dhan baa iga tagay iyo maskaxdii
meeshaana cuqubaa ka dhacday aabo waa kaab wax la yaab laha dhacay dhimashada aragtay meeqa waa waxa weeye dadku 70 kama yara dhaawac waa dadka dhintay dhaawac wuxuu ahaa 34 waa ka بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون أنت دمت الله نحرسته أنت كذا وعنتنا الله عافيه ماشان مصيبة كذا عليه ساكا أنا وحن كيمد عيالش مركا كيمد جك بوينت مركا كسود دقي يقرأ حرو كذا عي مركا أنا جاري صوص عد وأوجد لكن جاري كلا تركيا وسطي على الورد في جاري نوع اسمه راح قدرتها جاري دينا مكو قياس يعني قرأ وجد يعني جاري أو تركي ليه هنا الورد في جاري جاري تركي مركو واستاف كيسي لبنان أو تركيا لبنان تركيا يو استاف ولا سوق هذا درب جانا الورد في مركب كان جاري نال السوق هذا بروف تأهيد مركب لبنان تركيا ماشان كسر ده بحنيه وميته ويكون انت لكن dadka kale xisaab ma laha meesha jaamay ahayd arday jaamacadan oo muqdisho aad ugu baabay saddex hoome waxba kama badbaadin buugagtooda waxood intay buuxaan qaaran waa wacnay adiga wali la hadda buugagtooda waa kuwan qaarna waa wacnay dadna waa weynay marka dadka qaarkii waa la aqoon waay way kala gogo'een marka ilaahay masiibadaas ya meedka aragay ma soddon ka badan yihiin 70 way meedka maxaa dhaca dad hadda wili hadda inta ku jira hadda inta ku jirtay dhaawaca xisaab ma leh markiiba waa la guray 40 iyo 60 meelahaas way adi meesha masiiba ka dhacday ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ku dhintaan Allah u naxariisto ku dhaawacmaan Allah caafiyo insha Allah